وبرامجكي لبا مقالة وليب xalqadi ugu dambeeyda waxaana ku soo qaadan doonaa Casablanca iyo Los Angeles. I'm not just a pretty girl. Casablanca oo magaalada ugu weyn dalka Morocco iyo mid ka mid ah 10 magaalo ee ugu waaweyn qaaradda Afrika waxay dhacdaa xeebta badweynta Atlantic waana caasimadda dhaqaalaha ee dalka Morocco waxaa dhanka waqooyi kaga beegan magaalada ay dawladdu ku shaqeyso ee Rabat waxaana labadan magaalo ay isu jiraan baddan 95 kiiloomitir taariikhyahanada qaar waxay sheegayaan in magaaladani ay aasaaseen dad ka soo jeeda qabiilka Sinata ee barbarka ah waxaana loo aqoon jiray anfa Casablanca waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Daar al-Baydaa ama Daarta Cad Boortaqiiskii ayaa u bixiyeen magaca Casablanca kadibna Isbaanishkii ayaa u bixiyeen magaca ay maanta wato ee Casablanca sida uu cadeynaya tirakoobkii 2014 waxaa dadka ku nool magaalada lagu qiyaasaa 3 milyan balse waanta waxaa lagu qiyaasaa 4 milyan waxay kasbatay dhismayaal leh nashqado sareeyo oo ka turjumaya ilbaxnimada islaamka waxayna noqotay magaalada ugu muhiimsan Morocco marka la eego dhanka dhaqaalaha oo waxaaba ku yaala dekada ugu weyn Morocco iyo waliba garoonka diyuuradaha ee ugu weyn dalka Morocco balse marka la eego dhanka dalxiiska waxaa ka horeeya labada magaalo ee Agadir iyo Marrakesh Casablanca ayaana sidaas ku noqonaysa magaalada saddexaad sidoo kale waxay kasbatay magaaladani magaca magaaladii shuhadada kadib markii 1907 uu Faransiisku ku soo qaaday weerar dhanka badda ah oo madaafiic weeliso waxaana ku dhintay in ka badan 1500 oo qof waxaana la burburiyay inta badan magaalada Casablanca waxa ku yaala magaaladani masjidka Al-Hassan Az-Zani oo ah masjidka ugu weyn dalka Morocco iyo midka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waxaana ka weyn oo kaliya masjidka Jazaa'ir ama Jaamicul Jazaa'ir oo la dhameystiray sanadkii 2019 masjidka Al-Hassan Az-Zani waxaa la dhisay 1993 lacagta lagu dhisayna waxay ahayd in ka badan 400 oo milyan oo doolarka Mareykanka ah I'm not just a pretty girl. Los Angeles maradaan Bangkok ka sheekaynay waa inaan sidoo kale ka sheekaynaa Los Angeles maadaama ay tahay halka ugu badan ee ay degan yihiin dadka reer Thailandka ee ku kala nool daafaha caalamka markii laga yimaado dalka Thailand sidoo kale haddii aan Lagos ku sheegnay inay tahay meesha ay degan yihiin shirkadaha aflaanta ugu badan sameeya ee Afrika sidoo kale Los Angeles waa xarunta shirkadda Hollywood iyo meesha laga helo qaar ka mid ah jilayaasha ugu caansan caalamka ayaana ah magaalada ugu caansan caalamka dhanka filin sameynta waxaana ka dhacda maalintii in ka badan 100 shaqo oo filin sameyn ah waxay laba jeer marti gelisay ciyaaraha Olombikada sanadihii 1932 iyo 1984 sidoo kale ciyaartii finaalka ee kaba dambaysta ee koobka Mareykanka magaalada marti gelisay waa magaalada Los Angeles magaca magaaladan waxa uu ka yimid luqadda Isbaanishka markii hore la aasaasay magaceedu sida Bangkok oo kale ayuu u dheeraa sida tan ayuuna ahaa magaaladan waxaa lagu naaneysaa magacyo badan oo ay ka mid tahay magaalada dadka caanka ah magaaladii ubaxyada iyo caasimadda warbaahinta marka laga yimaado magaalada New York magaalada labaad ee ugu dadka badan dalka Mareykanka waa Los Angeles oo waxaa ku nool in ka badan 140 jinsiyadood oo kala nooc ah waxaana lagu qiyaasaa guud ahaan tirada dadka ee magaaladan in ka badan 4 bilyan balse markii la eego dhanka masaaxada magaalooyinka Mareykanka waa magaalada toddobaad ee ugu weyn waxay dhacdaa ay ku taala gobolka California oo ah gobolka ugu qanisan dalka Mareykanka waxayna ka qanisan tahay magaalada Los Angeles dalal badan oo caalamka kamid ah sida Sweden iyo Switzerland airportka magaaladan waa midka labaad ee ugu mashquulka badan Mareykanka waxaana ka horeeya airportka magaalada New York oo ah airportka ugu mashquulka badan adduunka sidoo kale magaaladan waxaa laga helaa madaxyada caalamka kuwa ugu badan ee laga helo dalka Mareykanka waana in ka badan 200 oo madax waxay la gaartay xeebaha bacaadka ah ee cad isla markaana caradoodu aadka u caddahay
I'm not just a pretty girl.